sorry xabiibti wallaahi aada ugu xumaa kowdhe ilaah kuu boogdhayo gabar la dili ma sahlano nin maa gacantiis loo dul qaadan karaa warxaasku waa xoogiisoo ii sheegtay yaa ula gaaraa kalxadaaji asoo gaaban lehba kuu kaduudana feer kuu dhiidhiibaay ilaah kuu dhib dhaamo nin si walbo gumac u yahay ma lagu aaday balaaye gacanka kane dumaraa jilcan yihiin haa hal midaa jirto inaa xanaaqaa dhagax ku dhuftay garabkate wax kalena kuma dhifanin jubtoo ii geedta haa badanbo garabkaa aa dhufta asaa nin cadiin ahee gacanta meesha gaduudee ka noqotay dhibkoo ii geystay intaen madaxa juuca ii taal madaxuu iga feerfeeraha way xanuunaya wuu iga feeri xaasid waaye qabiilkoo kasoo jeedo eelo waaye naayaha sisay u dilaan waa xaasidiin adoo og maxaa marka hore farqa ugu gasho walaalay inuu ka fiican yahay oo ku daweec duwan yahay umaleynaya laakiin wuu kusoo baxay dhibka family dardaarmaanay ahayd marka hore la cabsiyo la dhaho gabadha haddaad taabato nasiibkaa la dhaho wiilkaawi maku lalno maya anin lay habartay uweyn ma qaxweynays maxaa la gabadha ma hadda nin iska celin karto ma nin si walba oo kurtun u yahay ma lagu aadan beenaya iska celiso catoosh yaa naagta ku aad 25 sano jira 25 sano haa 25 jir waay ma catoosh 25 sano jiro haa cunug yar waxaa la dhahaa muga waa kurtune anaatis la igu siray 25 sano jira walaashiis maraykanka jirto oo ayaan dhaxas maraykanka oo sacuudi joogto maraykan gashay soo wacdanta iimaha waxay tiri catoosho markaan kaa soo tegay 2000 iima ahayd iyo 94 ma aqaan ee ahayd markaas meeqa ani waa ku saay markaas 8 jir camal ahay oo dhaa ma ay tir 8 jir markaas waa ka yaraad 4 sano camal jirtay dhaadi okay waxay tiri ana 20 maqanaay marka ninkas maxaa jirka la 25 jir maaho wala gaabnaanta uu siray ninka ma yaraya marka hore xabiibti wallahi aada ugu xumaa gabadhan aad arkaysaan waxaan fili in dhammaantiin aad wada garanaysaan isla markaasina qof kasta oo arka inta badan isla markaasina baraha bulshada isticmaalo inuu si fiican u garanayo gabadhan ayaa ah xaaskii Catoosh Yare ee dhawaan oo la aqal galay kuwaasi oo baraha bulshada sida weyn u qabsaday maalmihii la soo dhaafay hadalheentooda ay aad u badneed haddii noqon lahayd in xilligii arooskoodii iyo weliba xafladihii kala duwana ee loo dhigay safaradii ay galayeen ee gudaha dalka iyo weliba brankiya ay sameeyeen haddaba arrinta soo cusboonaatay ee hadda degihiina ku soo dhacayo ayaa waxa ay tahay in gabadhii ay wada joogeen Catoosh Yare muddada yarta horeyna u sheegtay inay carmaray ahayd oo inan ay wadatay in haddana ay sheegtay in Catoosh Yare ay kala tageen taasi oo ay u sababaysay ay tiri dabeecadiisa oo aad u qallafsan iyo weliba dagaalkiisa oo food ah ayaan u adkaysan way taasi waxa ay keentay inay isku dhacaan isla markaasina ay kala horeelaan waxa ay sheegtay in uu weerar uu ku soo qaaday oo dagaal bareer ah in uu la soo aaday iyaduna ay iska dhicisay isla markaasina ay ku tuurtay dhagax kaasina uu ka gaaray garabka kaasi oo dhaawac hadda say sheegayso uu ka soo gaaray dhaawacaasina hadda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho haddaba khilaafka qoyskan ayaa inta badan waxaa loo aaneynayaa baraha bulshada iyo weliba dhibaato fara badan oo ay bulshada ay kala kulmaysay kuwaasi oo cadaadis xoogan ku hayay qoyskooda maadaama iyagu ay soo dhigeen baraha bulshada noloshoodii khaaska ahayd
waabini maalin waxay ku jireen live kuwaasi oo ay dadka ay kula hadlayeen isla markaasina marka ay live-ka ku jiraan labadooduba cay kala duwan loo soo qoray nin walbana isagoo xanaaqsan ayuu haweenkii seexanaya taasi waxa ay keentay marka in ay isgargaarta caradii mid kastaba uu dhankiisa u xanaaqsan yahay atoosh lagu leeyahay islaan kaaweyn baad ka guursatay habeenii maalin lagu dhaga hadlayo iyaduna sidaasoo kale la leeyahay nin aan ku qalmin baa guursatay ilmo yar baa guursatay oo aska wadataa iyo waxyaalo fara badan oo xataa heebso laftiisaba uu ku jiray marka taasi marka waxay keentay in iyaga laftooda dhaxdoodii kala shaki badan ay qabaan soo waajahday kala shakigaasna uu keenay marka ugu dambeyn in hadda say iyada lafteeda afkeeda ay ka cadeynayso inay kala tagaan waxa iyadana maalmahan baraha bulshada sidan oo kale ku jirto in inkastoo iyaga laftooda san kale ay u cadeeyeen Sharma Boy iyo xaaskiisii Malyun in iyaga laftooda ay kala tageen taasi oo iyada lafteeda ay tahay khilaafaad badan oo baraha bulshada ka jiray in isagana uu sababay in iyagana ay kala tagaan marka khilaafaadkaasina nin kasto waa og yahay una dareemi karaa waxa uu ku saleysan yahay waayo waxaan wada ognahay in dadka intii noloshii khaaska ahayd ee u dhaxaysay ninkii iyo xaaskiisii intii laga soo qaaday maanta baraha bulshada in la keenay oo lagu hayo inankoodii bay baraha bulshada keeneen noloshooda caadi ee baraha bulshada keeneen dood ba hadda markiiba ka dhalatay oo la leeyahay inanka isaga ma wada dhalin maslaxa baa dhalay maslax miday oo saaxiibkii taasi oo qoyskii dhanaa ee dhisnaa carqalad iyo lagu kala abuuray muxuu dhibaato markay kala tageen kadibna xataa kala tigitaankoodii sidaas laguma sii deynine ilaa hadda la daba taagan yahay oo waliba la leeyahay xataa ilmihii yaraa ee dhaleen ay dhici kartay in meher xalaal inay ku dhaleen in laga geliyo shaki ah in maada dhalin iyo heel baa ku dhalay iyo waxyaalo fara badan in ay keenayso Soomaalida inta badan waxaa ka khaldan in nolosha private-ka iyo midda kale ee qofka isaga public dadka uu la wadaagayo inay kala saaraan nolosha qoyska waa nolol khaas ah oo dhaxeeyo ninka iyo awradiisa taasi marka waxa loo baahan yahay inay si gooni ah inay u maamushaan isla markaasina aysan baraha bulshada aysan keenin laakiin haddii arrintii oo dhan baraha bulshada la keeno taasi waxay ku tusinaysaa marka in qoyskaasi si fudud u burburi karo isla markaasina looga guuleysan karo halgankii dheeraa ay doonayeen ay u hayaami lahaayeen inay rabeen inay ku gaaraan guul hadda waxa aad arkaysaan waxa weeye qoyskii shalay la dhisay baraha bulshada ka lagu wareeriyay in maantana ay leeyihiin waan kala tagnay inkasta oo isaga Catoosh uu soo hadin balse gabadha oo hadashay ee arrintaasi ay cadeysay ina sheegtay inay kala lamaadeen iyadiyo Catoosh